korjoogtaynta iyo ka warqabka howlaha amniga ee ka socda magaalada Muqdisho waa mid dhiirigelinaysa ciidamada geesiyaasha ee habeen iyo maalin qoraxda iyo qabowga u taagan difaaca dadka iyo dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre intuu seexan lahaa habeenkii waxa uu ka doortay inuu dhiirigeliyo ciidamada isla markaana uu kormeero howlaha wanaagsan ee bulshadu hayaan ciidamadeenu taa oo qayb ka qaadatay horumarka amni ee Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kormeerkiisii caadiga ahaa ee uu ku hubinayay howlaha sugidda amniga ee ka socda caasimadda isla markaana uu ku dareensiinayay ciidamada in madaxda qaranku ay ka warhayaan garab taagan yihiinna waxa uu ku tagay qaar ka mid ah isgoosyada Muqdisho xarunta dambi baarista ee loo yaqaan CID halkaasi oo lagu baaro dadka lagu tuhunsan yahay inay galeen faldambiyeedyo xarunta taliska ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaan traafikada xarunta tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye halkaas oo salaan uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo u diyaarsanaa inay ka qayb qaataan difaaca dalka iyo xarumo kale. Ra'iisul Wasaare Khayre oo kormeerkiisa ku heliyeen wasiirka amniga taliyaha ciidanka booliiska asluubta xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil kale ayaa dhammaan mas'uuliyiinta xarumahaasi u booqday waxa uu ka dhageystay warbixino ku aadan qaabka u shaqeeyaan kuwa dhammaan la falgala howlaha lagu dardargelinayo amniga dalka. halkan waa xarunta gaadiidka booliiska Soomaaliyeed waxaa ku sugan ciidamo cusub oo ku soo biiray booliiska laguna soo tababaray dalka Djibouti isla markaana ah dhalinyaro aqoon-yahana kuwaas oo go'aansaday inay ku biiraan ciidanka si uga qayb qaataan difaaca qaranka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqasho ugu tagay si uu dhiirigeliyo ku soo biiritaanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhalinyarada aqoon-yahanada ah isla markaana ugu bogaadiyo howlaha culus ee ay bulshadu ka sugayso. ciidamadani ayaa ah laba dufcadood oo tababaro kala duwan ku soo qaatay dalka Djibouti sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed. Mudane Ra'iisul Wasaare horta taagan ciidan booliisa oo lagu soo tababaray dalka Djibouti oo laba dufcadood ah waxa la 109 iyo 108 oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan howlgallada hadda socda xeradan Istanbul ku ah. dhalinyaradan waxbaratay ee ku soo biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya tayada ciidanka booliiska iyadoo looga faa'iideysan karo qayb badan oo kamid ah difaaca qaranka sida uu xusay wasiirka amniga qaranka Maxamed Abuukar Islow Ducaale. waa dhalinyaro yar oo wax bartay oo aqoon leh haddana iyagoo intaasan isku haysto waxay doorbideen inay dalkooda ka difaacaan cadowga marka waxaanu isticmaalnaa waxyaalo badan waa dhalinyaro aqoon u leh waxaan geysan karnaa saldhigyada sidoo kale waxa la geyn karaa hadii loo baahdo trubutario sidoo kale ciidamada sugidda amniga ee sama la yiraahdo magaalada Muqdisho loo isticmaali karaa iyo wadanka intiisa kale loo baahdo waa marka guul ay u soo hooyto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ciidamada u jeediyay hadal dardaaran ah ayaa tilmaamay inay hortaalo shaqo culus oo tan ugu wanaagsan ee muwaadin u qabta dalkiisa taasoo ay ku difaacayaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed. ciidanka cusub oo la soo tababarayna waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo waxa idin sugaysa shaqo aad u culus laakiin shaqada ugu wanaagsan oo qof uu qabto dalkiisa taasoo ah difaaca dalkaada hooyo. waxaan rajaynayaa inaad uga faa'iideyn doontaan waxa la idin soo baray shacabka Soomaaliyeed iyo dalkiina. waxaan u mahad celinayaa wasiirka iyo taliyaasha iyadoo runtii aan aaminsanahay soo jeedka ay soo jeedeen iyo dadaalka dheeraadka ay bixiyeen inay ku diirsadeen shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho uga mahad celiyay sida wanaagsan oo la shaqeeyeen ciidanka sugidda amniga caasimadda ee sama isla markaana ay ugu dulqaateen baaritaanada lagu sameeyo gaadiidkooda taas oo qayb ka ah qorshaha lagu adkeynayo amniga caasimadda. laakiin waxaan idinkaga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo dhammaan taliyaasha dulqaadka aad muujisaan fahamka aad muujisaan waan ogahay inay dhib tahay
in waqtiyo badan aad ciidamada meelo badan ay ka shaqeeyaan aad iyaga caawisaan waan ogahay inay waqti qaadato meeshii la aadi jiray sababtoo ah in baaritaan badan baabuurta lagu sameeyo waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si dardar gelin doono aanna soo gaari doono haddii ilaahay yiraahdo waqti aan loo baahnayn baaritaan badan marka amniga oo dhan uu soo hagaago inta laga gaarayo ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay badbaadiyaan nafta dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkaas waxaan idinka codsanaynaa inaad u dul qaadataan kalena shaqeysaan ciidamada amniga sugana waxaan leenahay waa inaad dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed si sharaf leh ula dhaqantaan inaad ixtiraamtaan guriyaha aad galeysaan waa inaad ogaataan inay yihiin guriyo dad walaalihiina meelaha aad taagantihiin dadka waayeelka hooyooyinka iyo carruurta waxaa la rabaa inaad si fiican ula dhaqantaan jidadka ka gudbisaan ciidanku waa astaantii qaranka fadlan muujiya astaantaas Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho